السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta, ku soo dhawaada qaybtii labaad, cafwan ku soo dhawaada qaybtii koowaad ee barnaamijka Hobsiimo. Maanta waxaan halkan idin kula wadaago jeclaystay qiso aad u cajiib ah, runtii aniga iga yaabisay. Qisadani waxay ku bilaaban ka dhacday wadanka Yemen. waxaynu ku bilaabanaysaa sida tan. intaan qisada bilaabin, asxaabta inta iminka daawanaysa sii shargareeya oo la sii wadaaga asxaabtiina. marka waxay ku bilaabanaysaa qisadu sida tan. waxaa jiray iskuul ka mid ah iskuulada wadankaas, ayaa waxaa dhacday iskuulka in fasal ka mid ah hablaha dhigtaa looga shakiyay inay boorsada ku soo qaataan ama shandadaha waxyaalo xunxun, yacni caljeedo filamaan xun ku jiraan. waxaa dhacday markii maamulku u diray shaqaalihii iskuulka yirina soo baara galaaska hablaha ku jira. markii habil loo tagay ayaa la bilaabay in la baaro boorsooyinkoodii. waxaa la soo gaaray gabar ka mid ah galaaska oo ahayd kaban mar walba kaalinta hore gasha, yacni kalaaska fasalka mar walba waxaa jiray gabadha fasalka kaalinta koowaad gasha. inantii markii la soo gaaray ayay diiday inay la baaro boorsadeedii. way diiday, waxayna gashatay hoosta. marka waxaa la sameeyey shaqaalihii way kaxayeen oo waxay geeyeen xafiiska ama ofiska, sidaad u taqaanaba. xafiiskii markii la geeyey ayaa maamulkii yidhi fur boorsada, maxaa ku jira. boorsadii way furtay, xafiiska ku dhex furaysaa. markii la furay maxaa laga helay mataqaanaa? maad garanaysaa waxa laga helay? runtii waxaa laga helay wax aad u liya badan. waxaa laga helay nusaacihii ardayda ee cuni jireen haraadigoodii ama wixii ka soo haray ayaaba ku jiraba. maamulkii waa la yaabay oo waxay weydiiyey gabadhay, wax jawaab ku celiyeen. waxa la yiri maxaad saan u samaysay? waxay tiraahday waxaan ka dhashay reer faqiir ah oo aan awoodin inay yacni soo gataan cuntada, sidoo kalena agoon ah. waxaana u qaadaa hooyaday iyo walaaladay iga yaryar. runtii waxay ku noqotay maamulkii lama filaan, iyo waxaanay filayn inay meesha kaga soo baxeen. waxayna bilaabeen inay u qabtaan reerkii wixii awoodaan ay ku taageeraan. qisadan maxay ka qaadanaynaa oo kala bixinaa sheekadan cajiibka ah? waxaan ka qaadanaynaa inaad mar walba hubsiino samaysid, yacni wax iska hubsatid intaadan waxa ku dhaqaaqin inaad hubsiino samaysatid. haddii aad waxa la yaabatid, hubso oo iska hubso, yacni wax ka yaabi ama la filan kugu noqday, mar walba hubsiinada la kaalay. waxaan jeclaystay in qisadan la wadaago maalin walba insha Allah, wayna la wadaagi doonaa waqtigan oo kale. asxaabtina la wadaaga. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.